runtii dee isbeddelku horta waa dhacayoo wax jira wey in qofka la bedelaana waa daruuri laakiin anigu waxaan u arkaa in isbeddelkan iminka lagu sameeyey ama laygu sameeyey xogayanimada laga qaaday in sifa aan sharciga waafaqsanayn laga qaaday sababta waxa weeye xogayuhu waa wakiilkii wasaaradda arrimaha gudaha waa waxaweye check and balance dowladaha hoose iyo dowladda dhexe meeshay ku kulmaan ama kulansiisa runtii waa maqlayseen in muddaaba inaan ka hadlayay saxaafadda iskamaan doonan kamanaan hadal saxaafadda oo wax dee laakiin dee wixii igu kalifayaa jiray riboodo badan ayaan ka qoray oo hantidii dadka oo la luusanayo o lagu tagrifalayo waan diiday inay saxaaxayga ku baxda aniga maadaama dee waxa weeye saxaaxa mas-uuliyad ta alla iyo ta ummaddu bay saarantay waxaanad waxba dee u qaadan oo aanad magaranaysaa aanad waxba ka ogeyn oo wax ummadeeda anigoo mustaqbalkayga aakhiriya adduunba eegaya ayaan diiday horta waa soo bandhigay markii saxaaxyadaa laygala quustay hantidaa ummadda ayaan ilaalinay lagala quustay ee wasaaraddeediina riboodkaan u gudbiyey weli ilaa hadda wasaaraddeedii su-aaligamay qaadin waxaan u gudbiyey waxaani ma jiraan iyo ma jiraan inay jiraan iyo kale xitaa may hubin dee markaas sababtaasaan u leeyahay xolka xilku dee waa meerto waa laga qaadi karaa qofka laakiin sababtaasaa aan u leeyahay waa sharci darro qof hadduu qayliyo uu yidhahdo de warkaynta libaax baa ku jira balkaale eega dee in lala arko weeye ilaa waxbaa loo diray haddii si waxba laga qaadin oo la caburiyo marka dambe la maxaad u hadlaysaa xilkaa laga qaaday dee waxaan u arkaa sharci darro waana qodob ka hor imanaya runtii sarayntii sharciga iyo la dagaalankii musuqmaasuqa anoo xukuumaddan oo xukuumad cusuba mar walba garab taagan oo la shaqaynaya oo ay tahay xukuumaddii aan soo doortay waxaana ka soo dhisay haddana dee wasaaraddaasi iminka waxay image ka bixisay yacnihii image qaldan ka bixisay arrimihii xisbigu ama xukuumaddan hadda joogta ay ku oleynaysay xukuumaddeedu ku oleynaysay ee ahaa in sharcigu sarreeyo musuqmaasuqa lala dagaalamo intaasaan ka odhanayaa xil wareejinta waxaana jeclay si dhaqsaa inaan u diyaariyo xil wareejintii aad baan ugu faraxsanay maanta in muddadii khilaafkaygaas taagnaa oo 4 weeg ahayd wixii aan ka caawinayay bar badan ii qabsoomeen intaa yaree saxaafadda ka hadlay oo ay ka mid tahay in shaqaalahaygii 3 bilood ee mushaharka lahaa aanay maanta wax mushaara ku lahayn dowladda hoose wax daynana aanan kaga tegayn aad baan ilaahay baa mahadle si wanaagsan oo xil wareejin oo ana waan ugu wareejinay ciddii la keenay walow aanan ogeynba cidda la keenay ay warqad xilka qaadisoon iyo timid waxaa kaloo iyadana aad aan u cambaaraynayaa gaadiidkaygii ama gaadhigii aan watay anoo shaqadii xafiis ku jira in si sharciga baalmarsan askarta dowladda hoose amar loo siiyey ma garanayo cid amar loo siiyey lakiin arrintaa taliska guud baan u sheegay waa se sugayaa waxay kaga jawaabaan insha allah bidnillahi kariim waday cali axmed cawaale waatay xoogii lixaad dowladda loo soo magacaabo intuu maayirka ku joogo caasimadda dad waxay isweydiiyaan halkee baa laga raacaa xogayaasha la bedelo inta meesha ka shaqaynaysa runtii waanigii hore u sheegay xogayaasha way badan yihin la kala bedelaa horta maanta waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa ama wasaaradda arrimaha gudaha u soo jeedinaya kol hadday sidanba tahay waxba yaan xogeeye la geenina maayarka cid ha magacawdo xogayaa haddii mar kasta xogayaha uu isagu doonayo loo keenayo wuxuu doonaya haddii loo sameyn waayo markuu ka cawdo il xogaye loo bedelayo dee markaa waxay ku qurux badan tahayba kan dambe iminka la keenana dhibtaan la kulmin buu la kulmayaa cid la shaqaysa ma helayo shaqadaa loo diray cid ku garab istaagta ma helayo anigu shaqaale ahaan waxaa joogay wasaaradda arrimaha gudaha 20 sannadood 3 dowladood ee dowladdeena cigaal tii muxuu ahaa daahir yaale tii siiraanyo iyo tan muuse buyixi ee iminka haddee bilowgaa horta 3daa waan la soo shaqaynayey shaqaalii u horreeyey loo qaato muxuu ahaa imtixaanka hay-adda shaqaaluhu ka qaado ee dowladdeena cigaal baa ka mid ahaa waxaa igu soo maray wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkaa la joogay iminka maxamed kaahin axmed waa wasiirkii 14aad ee igu soo maray meesha dhiijiga maanta shaqaynayaana waa dhiijigii muxuu ahaa 12aad inta badan wasiiradii aan la soo shaqeeyey way nool yihiin dhiijyadiina way nool yihin intii dhibatana loo naxariisto
weli wasaaraddan joogo oo shaqooyinka ugu adag ee ugu culusaan ka soo qabtay digniin anshax marin iyo shaqa ka joojin midna layma qorin brofaylkaygana kuma jirto wasiirkii u dambeeyey magacaabay xilkani magacaabay waa yaasiin faratoon waa weydiin kartaan ilaamuu tashan xitaa markuu i magacaabayey ismaanaa hor fadhiisan intuu wax iga weydiiyana mu odhan halkaasaan ku magacaabaya ka waran laakiin warqadoo magacaabisa oo meeshaa laga gartoma ay timid sidaasaan ku imid kolley xil wareejinta muxuu ahaay shaqa ka qaadistaydu iyo magacaabisteeduna different ways fara badan baa udhexeeya insha allah waxaan kaga hadli doonaa qormooyin fara badan oo aan soo tabin doono runtiina waxaan leeyahay oo wasaaradduba u soo jeedinaya anigu kol hadday sidanba tahay waxba yaan xogeeyo loo magacaabin dowladda hoose dee agaasimaha maamulkaba xogeeyaha ka dhigto maayarku ha magacowde kolley kudoonin baa loo keenayaa haddii dee wixii dooni loo fulin waaye wixii aan xilkan ama khilaafkayga keenay lama eegin markaa dee waxaan odhan lahaa waa laga maarmi karaa xogeeye loo daayo maayarka kaliya ku filantay meeshu intaasaan odhanayaa wixii dambe qormooyin fara badan oo aan soo bandhigi doono hadday musuq maasuq ahayd iyo hadday wixii aan ka cabanay ahayd iyo hadday sixiyada been abuurka la isticmaalay ahayd iyo hadday hantida la lumsaday ahayd iyo hadday hantidaan gacanta ku hayay ahayd markaan xilka wareejiyay insha allahu bidmillahi kariim ayaan usoo bandhigi doonaa bulshada waana ka bogan doonaa insha allahu bidmillahi kariim